intuu diba way ka hadleen kaliya waxaynu u baahannahay inaynu ilaahay iyo xukuumadaba ugu mahad celino oo nidhaahno waxa weeye la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum in cadaabi la shadiid haddii waxa wanaagsan laga mahad celin waayo waxa waajib nagu ah maadaama dad islaam nahay wixii la qabtay inaynu ka mahad celino kullay anaga mahad celin weeye wixii doorka iyaga insha Allah saan waraba dhismihiisii uga qayb qaadanay golo deegaan ahaan haddii cagafyada tahay haddii halkii wax laga soo guriyay tahay kullayba waxa gaal baan nahay sidoo dhismayay iyo sidii maaragtay shaqadu u socotayba wixii dhinac iyaga runtii waan ka qayb qaadanay maanta insha Allah ta'ala maadaama aynu wax wada leenahay gobolka Gabiley ay gobol wax wada leh oo hodana oo beerada oo khayraada xukuumadda maanta jirtaana ay awood ugu badan saartay gobolkan sidoo horumar u gaari lahaa Gabiley ahaan wixii isbitaalkaas nagala soo hagaago diyaar baan u nahay dadka reer Gabiley mar haddii la noo dhisay isbitaalkii oo layna baray in wax la wada qabsado cimrigiisa Allah dheereeyo madaxweynaha qaranka Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo aynu ilaahay uga baryayna inuu cimrigiisa u siyaadiyo oo ay rajadeennu ahayd hore iyo dambaysaba mar uu inuu hogaamiyo maadaama uu halgan dheer iyo taariikh dheer soo galay waddanka ilaahayna maanta cimrigiisa ku sibay in halgankii shalay mid la mid ah oo horumarka ah ilaahay lagu gaarsiiyo waa wax alxamdulillah wax taariikhdu gali doonto way marwada ugu koobaad ee qaranka oo shalayna ahayd hooyadii halganka maantana hooyadii ummadda Soomaaliland waxaan leenahay waad mahadsan tahay reerkiina isku mashadaan kulley hadday qurbajoogka tahay dadkii cisbitaalada Gabiley oo kale wax keeni jiray kontiinarradii qalabka caafimaadka wixii cisbitaalkaasi u baahan yahay inuu gudtano meel aynu ka soo wada jeedsano sida Cabdi Saleebaan sheegay waxaan leenahay marka la garan waayo wax dhiman oo la qaban waayo la sheego ayaa la yiraahdaa halka waddanku waa rinti Cabdi waa rinti weyn Soomaaliland halka waddanku maray way ogtahay ummaduna way ogtahay reerka kuwa jaalay iyo reer Gabiley oo dhanna waxaanu leenahay madaxweyne insha Allah ta'ala ku soo toos oo ku seexo inay codkooda ku siiyaan mar labaad oo ay diin kula gartaageen.